gaari qaraxyo ay ka buuxeen oo gacanta lagu soo dhigay iyo sirdoonka Muqdisho oo xoga kala helaya gaari ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa oo la doonayay in lagu dhibaateeyo dadka Muqdisho ay ciidamada ammaanka gacanta ku soo dhigeen iyadoo sirdoonka Muqdisho wili ay helayaan xoga kale oo dheeraad ah ciidanka Commandoska Soomaaliya ee Danab ayaa gacanta ku dhigay gaari la sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa kadib howlgal ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose qaybo kamid ah nooca gaariga la soo raray ee qarxa uu ka buuxay ee ay qabteen ciidanka waa Hoomey waxaana lagu qabtay tuulada Cadcadey oo hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ciidamada Danab ayaa howlgalkan sameeyay kadib markii lagu soo wargeliyay in Al-Shabaab ay halkaasi ku rakibayaan gaari qaraxa waxaana u suurta gashay in ay gacanta ku soo dhigaan isagoo aan qarxin wax dhibaato ah aan geysan saraakiil ka tirsan Danab oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in gaariga la qabtay uu ku soo wajahnaa magaalada Muqdisho inkastoo aan la shaacin bartilmaameed rasmi ah oo uu ku wajahnaa waxay sheegeen saraakiishu in gaarigaas muddo la raadinayay isla markaana lagu dhibaateyn rabay shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho balse ay ka hortageen Ilaahayna uu fududeeyay saraakiisha u hadashay Danab waxay sheegeen in shacabka ku nool deegaanka lagu diyaarinayay gaarigan qaraxa ah ee Cadcadey ay ku soo wargeliyeen iyaguna ay ka howlgaleen sidii ay u badbaadin lahaayeen naf badan oo Soomaaliyeed inta badan qaraxyada ku rakiban gaadiidka Al-Shabaab ay weerarada uga geystaan gudaha caasimadda Muqdisho ayaa lagu soo rakibaa gobolka Shabeellooyinka waa Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe iyadoona ay muuqato in iminka caasimadda Muqdisho aad iyo aad looga dareemayo cabsi aad u xoogan oo dhinaca weerarada la xiriirta